Aamu Haji oo aan qaboysin in ka badan nus qarni waxa uu diiday inuu isticmaalo saabuun iyo biyo in ka badan nus qarni isaga oo ka baqaya inuu ku xanuunsado. Iiraaniyaankan oo ku nool gobolka Koonfureed ee Faris ayaa ka fogaaday isku dayo hore ee ay dadka tuulada ku doonayeen in ay ku nadiifiyaan. laakiin sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah, Haji waxa uu ugu dambeyntii u hoggaansamay cadaadiskii bulshada isaga oo meedhay dhowr bil ka hor sida ay ku warantay wakaaladda wararka Iran Arna. Wuu xanuunsaday wax yar kadibna uu geeriyooday maalinnimadii Axaddii. waraysi hore uu siiyay Tehran Times 2014, Haji wuxuu ka qaaday unada uu ugu jecel yahay inay ahayd hilibka doofaarka iyo inuu ku noolaa inta u dhaxaysa god ku yaal dhulka hoostiisa iyo guri laban ah oo ay dhisteen dad diris ah oo ku yaal tuulada Dijka. waxa uu sheegay wargeyska waqtigaas in doorashadiisa ku kaliftay arrintan ay tahay hoos u dhac nololeed oo aan aadi ahayn oo haleelay kolkii uu yaraa. sanado aanu qabaysan waxay ka dhigeen maqaarka jirkiisu inuu noqdo mid ku daboolan dhas iyo wasakh, ayay Arna tiri. halka cuntadiisa ay ka koobnayd hilib quran ah iyo biyo aan nadiif ahayn oo ku cabi jiray gasacyada saliidda oo duuga ah. waxa kale oo aad u jeclaa sigaar cabista, isagoo la sawiray marar kala duwan isagoo sigaar cabaya. isku daygii ahaa in loo meero ama la siiyo biyo nadiif ah oo uu abo ayaa gaartay xaalad murugo ah, ayay tiri wakaaladda wararka ee baahisay geeridiisa. si kastaba ha ahaatee, haysashada rikoorka qofka aan qubaysan waqtigii ugu dheeraa ayaa ahayd dood taagneyd tan iyo sanadkii 2009. waxaa jiray warar sheegaya in nin Hindi ah oo xilligaas aan meedhanin ama aan cadayn ilkihiisa muddo 35 sano ah, kaas oo aan la ogeyn ilaa iyo hadda halka uu ku dambeeyo.